السلام يا دمان بعض الصوماليات طبعا dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay arweelo maansooyinkeedu ugu badan yihiin ragga jeebka buuran miyay jeceshahay marba kaan kistiyo kumanaan ka helo kuma qayliyo korkan saaraya ilaan kooshin iyo waa kaahiye kaydkiyo duxdaa loo yara kaca jeebkuusan baahan ka korinaye niman koo bahayn yaa ka koobin kara kalkacaylkan iyo xiisahan kashbacay waxa korinayo kor u qaadi kara kaabayaasha iyo boorsooyinkoo lagu kiishay mani haddaad keeni leyd 1.2 milyan kasbashiya cishqaad koombaysan leyd annakaa horaan kuu karin lahaa kumbus iyo digaag saad kuruska iyo kaabash cuni lahayd ku kastaba ohow oday kaahin iyo ku bidaar la noqo xildhibaan kibriya kala xirano noqo oday sii kufoo ku kutubo ushiyo koomba miisan noqo ku qudaar gadiyo koo qalin sitaba kulligiin dhammaan kaashweynaha iga kaafin kara ninna kaamil iyo uma ihi kordahab kolba kii nimcada igu korinayaan kaalmaynaya haddaan yara karhana ku kaloo ka wacan baan keenaya waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed oo waqtigeeda u qaybisa waxbarashada iyo hal-abuurka magacaygu waa Ismahaan Cabdikaafi Guuleed balse dadku waxay ii garan og yihiin Ismahaan Araweelo waxaan ku dhashay dawlad deegaanka Soomaalida waxaan iminka ku noolahay magaalada Muqdisho oo jaamacad ka dhigtaa kulliyadda aan bartana waa Public Administration suugaanta waxaan tiriyaa badanaa marka aan waqtiga u hayo imana ay dhibto oo xilli kasteeto waan samayn karayaa waayo waahibe Ilaahay bixiyay oo isiiyay ma jecli anigu ragga lacagta la taargadna ima ahan laakiin marar badan waxa jirta raggu inay hablaha qurux ku xushaan habluhuna inay ragga lacag ku xushaan interest ay labadooduba isku raacaan marar badan bay dhacdaa marka sababtaas waxay keentay inaan mar badan aan ka hadla suugaan ka hadlaysa habliyo lacagtii raba laakiin anigu ma jecli lacagta mustaqbalkana kii Ilaahay igu soo beego yani lacag kuma xulan doono hablaha Soomaaliyeed inay hal-abuurkooda bulshada la wadaagaan waa laf dhabarta yani ummad kasteeto maasada buu holiqsada ay ku timaaday mid kamid ah asxaabtayda qurbaha ayaa maxaa loo dhanayay sheegay wuxuu igu yiri Ismaaniya dan Afrikadan ka wado ama aan ku geeyay xaggan qurbaha kuma soo baxaysid wadanka ka waran marka waxaan ku yiri hadan aad heli leeyd ama aan kugu jeclaan la wadanka oo sida u qurux badan aynu ku dalxiislayn jawigu sidee buu noqon lahaa marka maasadu waxay leedahay haddaad buuro fuushiya haddaad raacda baabuur ragga badi ahaantood haddaad baydh ka noqoto duma bogin jiraahdaba midka calafku beegsado boqorka xukumayo adoon bari la hadal baad bixisaa naftaadood bistihiisa qaada aan yara bayaan shoobarta aanu jeediye warka baalka taabta boowa aragtidaadii anoon baran jacaylada buugooda weli qorin oo badiba sheekada beeniyo u qaba hadal isbariidinteeni sowtaan bastay iyo noqday ruux bar loo dhigay yowga caashaqa waxaan bogan lahaa jiif naftu raaxa baran layd adigoo bu'aaliya bartamaha wajeer iyo beledweyne iyo luuq boosaaso deeqiya dhulka bilicda wacan ee meydigu ka bixi jiray barqa ila socdaal gala buuraha sanaagay quruxdooda loo bogay baran iyo hadaaftimo bahdi ceeri gaabo intuu roob barqadi helay baliyada xareedii baalaha ka joogaan baalaleydu goorta bidbidaysa meelaha nabad lagu bariisto barqa dharagta xooluhu dhirta hoos ka soo baxay baalbaalo jiifaan barbaartuna gedoodii goor hamaynbar ay tahay haasaawo loo baxay gaaraabidhoodkuna nuurkii ee babaaldhigay bixinaya fiidkii balwadii ciyaaraha batarka iyo dhaantada loo baxay heelada oo barisamaadkii sidiisii u bilic wacan ayaan baashahaygo bilcil hoosta sheekada kuu bilaabilaayo sidii boqor la doortaa dadka badi ahaantood kuu baafin laayeen